السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وعن وناكسن دمانتي مالك سجوكتان كسودو كنال كينا يوتيوب على اس اونلاين. ان شاء الله فيديو جينا مانتو waxaa kula wadaagi doona su'aal aad iyo aad u qiimo badan oo inoo soo weydiiyay mid kamid ah asxaabta ku taxan kanaalkeena YouTube-ka. Su'aashan waxaan leedahay sidee u soo gelin karnaa YouTube channel art iyo watermark. Okay, kahor intaan ka jawaabin su'aashaas waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan nagu taageertaan like, subscribe iyo share. Haddii ay ilaa dhamaadka aad sii daawan doonin ha iloobin markaas sii bixis inaad like taabato. Waxaa laga yaabaa videoga inuu gaaro dadkii u baahnaa. Aadna u mahadsan tahay. Anakan waxay noo tahay runtii dhiirigelin si aan u soo diyaarino video kale oo aad iyo aad u fiican. Okay, waxaa kula wadaagi doonaa qaab fiican oo sahlan oo u baahnayn maaragtay xirfad gooni ama program gooni inaad barato. xitaa design inaad taqaan u baahnid sida u soo gashan lahayd YouTube channel art iyo watermark. meeshan ay kula wadaagi doonaa. Okay, marka ugu horeyn inaad tagnaa marka hore Canva. hadda ka horna waa ka hadalnay sida loo isticmaalo Canva marka la diyaarinayo gaar ahaan logo. maanta waxaa u soo qaadan doonaa YouTube channel art ayaa ku sameyn doona Canva iyo watermark. ila soco marka hore waxaa kor qoraysaa URL-ka Canva marka qorto.com. marka gudaha u soo gasho waxaa arkaysaa waxyaabo badan. waxaan inaad ku yabaasho ama aad ku wareerto u baahnid waxaad tagaysaa oo kaliya templates qaybta sare dhinaca bidix. markaad tagto waxaad tagaysaa YouTube. waad tagi kartaa meeshaas daa u baahato ama qaybta waad tagi kartaa YouTube channel art. meeshaas ayaa tagaysaa. si kale oo tagi kartaa oo meeshaas ay qoraysaa YouTube. markiiba waa lagu siinaa YouTube channel art. ogsoonow markasta size-ka ama cabirka pixelka waxaa waaye 2560 iyo 1440. sidaas waa u samayn kartaa. haddii aad rabo custom size waa dhigi karaa haddii aad cabirka toos u taqaanid. okay, markaad ma u baahan inaad cabirka xasuusto toos ayaa u tagaya YouTube channel art. marka YouTube channel art doorto waxaa la siinaa kuwo badan oo naqshado badan hor loo soo diyaray oo aad iyo aad u qurux badan. okay, waxaa isku dayi doonaa kanaal YouTube hadda aan leeyahay oo tijaabo ah ayaa waxaa isku dayi doonaa inaan u sameeyo watermark iyo channel art. all right, kuwaanoo dhan aad u fara badan yihiin. ma u baahna inaa waqti badan ku isticmaalo. waxaa isku dayi doonaa inaa midkan soo qaato tusaale ahaan. qaar waa free ogsoonow, qaarna waa lacag. kuwa dollarka sign ku taalo waa paid lacag ayaa waa inaa bixisaa. laakiin kuwa freega ayaa kaa badan oo maaragtay aad isticmaali kartaa. okay, waxaa soo qaadanayna marka mid sahlan. tusaale ahaan waxaa soo qaadanaya midkan. markaa furo waxaa lagu leeyahay midkan miyaa u baahan tahay asigoo paid wuu jiraa laakiin kan ayaa u filan. okay, markaa sidaas fur waxaa la geenayaa page-kii. markaan waxaa awood u leeyahay in aa wax ku soo daro, wax ka bedelo, logo soo geliyo, wax raba ayaa ku samayn karaa. okay, qaybtaas dhexdana meesha ay kuu dhigeen waa inaad isticmaashaa. haddii aad kor u qaado ama hoos u qaado waxaa laga yaabaa hadhow YouTube channel artigaada magacaada in oo mobileka ama iPad-ka inuu si fiican usoo muuqan. hadda kanaalkeena waxaa lahaa fariin waxaa lahaa fariin iyo dardaaran. waxaa ka dhigaa fariin iyo dardaaran uu dheeraaday waa jiidi karaa. markaas loogaha dhinaca soo jiid. haddaa rabo loogama u baahni waa iska tuuri karaa si ma aragtay magacaan aa ugu helo boos. magacaada badanaa waxaa fiican magacyo gaaban inaad ku samaysto. okay, magacaada hoos dhiga haddaa rabtid. muhiimadda maaha videoga maanta sida designka loo sameynaya waxay tahay oo kaliya sida loo soo geliyo. okay, naqshada adiga adaa maaragtay samaysan karo sida u rabto. haddii aad rabto elements waa soo gelin kartaa waxyaabo sida xidigtaas oo kale waa soo gelin kartaa haddaa u baahato. si aad usoo gaabiso geeska ukan ayaa qabanaysaa shift ma taabanaysa. markaas waa soo gaabinaysaa dhinac ayaa ka dhigi kartaa markaas. okay, hadda ma baahna xidigtaas iga tuur. okay, sidan ayaa ku daysan karaa laakiin waxaan rabaa circle-kan inuu usoo dhawaado. waa qabanaysaa circle-kan dhex saar haddii aad u baahato. okay, hadda maku mashquuli doono sida loo sameeyo ama sida loo isticmaalo Canva. waxaa kaliya oo u baahnayn inaan sameyno channel art. kadib waxaa usoo laaban doonaa watermark sida loo sameeyo. waa qalday fariin waa inaan meeshan ka dhigaa fariin iyo dardaaran. Ali Cusmaan dardaaran. intaadan aadan soo publish karayn waa inaad iska fiirsaa magac inuu saxsan yahay. sida oo kale qalad yar ayaa sameeyey. fa'di waa inaan qoraa. kadib markaa qoro waxaa taabanaya download. okay, naqshado badan haddii u baahato page kale daarabto kusii dari kartaa add page. waxaad tegaysaa templates. mid kale waa keensan kartaa
fariin iyo dardaaran waa ku qori karaa daa u baahan midkan fariin waa ku qori karaa qaybtaas oo soo calaamadeynaya delete ayaa iska taagaya markaas daaraba kan waa iska toori karaa ama waa ku dayn karaa sidiis haddii aan rabo inaa ogaado sida u muuqdo markaas qaybtan hoose oo falaarka si kala muuqdo present full screen ayaa taabanaya sidaas ayuu usoo muuqan doonaa fariin iyo dardaaran kii horena back markaa taabto sidaas ayuu noqonaya kan ayaa ku qanacsanahay kan ayaa qaadanaya okay marka hore waxaa tagaya download markaa sidaas u tago laba page ayaa lasoo download garan raba markaan fiirso laba page ma u baahni pageka dambe waa iska calaamadeynaya oo waa iska bixinaya kadib done waxaa jirto formaat badan aad samayn karto jpeg pdf waxaas oo dhan qaadan kartaa video ahaan xitaa usoo saari kartaa ama gif midka u taqaano png ayaa qaadanaynaa download okay waa inoo soo dhaadhacay wuxuu tagayaa marka fileka ama folderka adiga ah marka hore wax kusoo download garist ayuu tagayaa oo fiirso intaan ka bixin waxaa kaloo samayn doonaa back markaa taabto home waxaa samayn doonaa watermark haddii aad tago kanaalkeena marka hore waxaa ujeednaa kanaalka qaybtan sare ayaa lahaa channel art watermarkna waxaa lahaa videoga qaybtiisa hoose dhinaca subscribe-ka magac yar oo kasoo muuqda ayaa lahaa watermark marka hore waxaa tagayaa channel customize ama waxaa tagaysaa qaybtan sare your channel markaa tagto qaybtan ayuu keenayaa customize channel ayaa taabanaysaa markaas customize channel markaa tagto kadib waxaa sii tegaynaa customization markaa joogto branding markaa tagto qayb waa logo qayb waa watermark waxaa la dhahaa channel art qaybta hoosena waxaa la dhahaa watermark oo ujeeda videoga qaybta hoose sawirka ku yaala ayaa la dhahaa watermark cabirkiisana waa 150 pixels okay ugu horeyn marka ogsoonaato cabirka u baahan tahay kadib waxaa ku laaban kartaa canva waxaa laga create designka custom size ayaa ka dhiganaa markaas meeshaas waa ka dooran kartaa ama waxaa ka dooran kartaa meeshaas custom size waa dhigi kartaa 150 pixels waa inaad doortaa centimeter maaha millimeter pixels sababtoo ah youtube waxay ku dhaheen waxaa keeni kartaa 150 pixels kadib create design ayaa taabanayna markaa design create garinay markan waxaa fursad u haystaa in aan soo geliyo waxaa rabo markaas qoraal ogsoonow laakiin cilada jirta waxay tahay marka free aad isticmaalaysid canva ma helaysid transparent background waxaa qaadanaysaa background iyo qoraal isla socdo waxaa tusaale ahaan qaadan karnaa waxaa qaadan karnaa mid fiican kuwa designational siiye midkaas oo kale ayaa qaadanaysaa waxaa ka dhigi karnaa fariin waxaa usoo gaabinaa fa'ra dardaaran waxaa usoo gaabinayaa da'ra haddaa rabto ayadoo dhammaystiran waa qori kartaa laakiin hadhow ma kasoo muuqan doonto si fiican videoyaashaada okay fariin iyo dardaaran alright kadib waxaa sameynayaa farta waa weyneyn karaa dhinac ayaa ka jiidaya marka ka jiida oo weyneeyo kadib centerka meesha waa inaa helaa centerka ayaa joogaa maaragtay horizontal iyo vertical dhexda jooga iyo dhererka dhexdaba centerka ayaa taaganaya kadib download ayaa leeyahay download okay mararka qaarkood lacag in lagu xiraa laga yaabaa iska fiiri sawirada aad soo isticmaalaysid sawiro ay leeyihiin oo paid haddaa soo geliso lacag ayaa lagu xiri doonaa kadib labadii sawiro soo gashan u baahneen kanaalka ayaa ku laabanaynaa waxaa taabanaynaa change markaa rabto inaad channel art soo geliso midka hore iu saarnaa waa iska tuuraya oo mid cusub ayaa soo gelinaya waa ka sawirkii hore sidaas ayuu muuqda fariin iyo dardaaran okay saas markaa rabto computer weyn marka laga fiirina saas uu muuqanaya marka tv laga daarayo qaybtaas markaa ku aadiso tv saas ayuu muuqan doonaa laakiin mobile saas ayuu muuqan doonaa kadib waxaa taabanaynaa done fariin iyo dardaaran meel kasta uu kasoo muuqanaya mobileka computerka iyo laptopkaba iyo tvgaba okay markaan waxaa rabaa inaan soo geliyo video watermark upload markaa dhaho magacaas iyo wataa markii hore magac waa kasoo bedeli karnay u fiirso sidaas waa ku dayn karnaa video kasta soo geliyo qaybta hoose magacaas ayaa isaarnaan dino fariin iyo dardaaran oo lasoo gaabiyey kadib haddii aad rabto waa yareyn kartaa waa soo gaabin kartaa laakiin sidiis noogu daa
waa cabirka saxda u baahannahay waa 150 pixels done marka taabato u fiirso videogii qaybtaas hoos ayuu joogaa oo maaragtay marka aad saas u gelis kadib waxaa lagu siiyay 3 option end of videoga markuu dhamaado maarta inuu ku soo muuqdo watermark mise waxaa rabtaa custom start waqti gooni ama daqiiqad gooni marka videoga mar inuu soo muuqdo marka meeshaas ayaa ka bedeli kartaa 5 second kadib 10 second maarta badanaa waxaa la geliyaa 5 second ama 10 second ugu horeeya la geliyaa haddii aad entire video ka dhigo dadka inta badan saasay ka dhigtaan sawirkooda ay soo geliyaa meesha oo yar oo black and white asigoo waxaa soo qaadan doonaa mar kale oo maaragtay transparent background isagoo oo waxaa ku sameyn doonaa Illustrator waxaa jirta xitaa barnaamijyo online oo looga saaro background insha Allah mar kale ayaa soo qaadan doonaa haddii aad u baahataan su'aalaha commentiga hoos inoogu soo qora kadib waxaa taabanaynaa publish markaad taabato waxaa waa markaas kanaalkaada meel kasta oo kanaalkaada laga fiiriyo mobile ama computer ama TV wuu kasoo wada muuqan doonaa intaan ka bixin meeshaan loogaha waxaa kaloo gelin karaa watermark waa gelin karaa change ayaa taabanaa asiga xitaa looga naftigiisa watermark ayaa la gelinaya isku mid ayaa ka dhigaya done fiirsa kulli isku mid ayay noqdeen FRDR ama waxaa waaye fariin iyo dardaar kadib publish ayaa tagaya okay u fiirsa qaybtaas soo isbedelaysaa qayba wax kasta meel kasta oo YouTube-ka u fiirsa way isbedeshay okay view channel kanaalka oo fiirinayna sida uu muuqan doono fiirso waxaa noo soo muuqatay fariin iyo dardaaran Ali Usman okay markaan waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabno su'aashii oo soo weydiiyay mid kamid ah asxaabta ku taxan kanaalkeena oo ahayd sidee u soo gelin karnaa YouTube channel art iyo watermark waxaa xitaa kaloo dheeri ugu darnay sida loo bedelo profile picture horna ugu hadalnay okay waxaa jeclaan lahay inaad nagu caawisaan subscribe like iyo share asxaabtana la wadaagtaan runtii waxay noo tahay dhiirigelin si aan usoo diyaarino fiidiyoyaal kale oo aad iyo aad u fiican okay waan mahadsantihiin haddii aad qabtaan wixii talo iyo su'aal soo jeedin commentiga hoos inoogu soo qor fiidiyoyaal kale haddii ay jiraan aad jeclaanayda inaan soo sameyno sidoo kalena soo weydiiya insha Allah waa soo qaadan doonaa oo video ay kasoo sameyn doonaa waan mahadsantihiin waa anigoo Cali Maxamed Ismaaciil Baashi oo idin leh waa inoo mar kale insha Allah